dalku waa nabad waxaan halkan baa uga dirnaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo gudoomiyaha golaha wakiiladuba walaalaha isku dilaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qoriile dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha dad badan oo ku dhintay sanado badan uu socday saddex dalla uu saameeyaa innaga Somaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia uu sameeyaa waa halkay saddex xad isku yimaadaan waxaanu baa qudranaa dadka walaalaha halkaas isku dilaya in aqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba korineen muddo ka badan san la ii sheegay 10 sano oo dalkaas socda oo kolba intuu dabaha dal soo horaya kol walba ugu yaraan 10 20 intaas qof baa ku dhintay intaas ku dhaawacantay sabab ay nusada dagaalka riiqda dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaana garan maayo wixii muslina iyo Soomaali ah ee wax garan waxa leeyahay arinta laga gulmado oo dadka isdilaaya waa dad Soomaaliyeed waa Somaliland waa Soomaaliya waa kila saada Ethiopia waa isku family uun xadka ku badan talaaba iyo muslimiinba in loo gurmado arinta xal laga galo waara oo lagu dabiyo ayaan baqaa mudareynaa wax garadka saddex dawladood ay saameysaba diyaar baan u nahay qaybteena nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliland nabadda hoggaamisa